taariikhdii rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam dhimashada hooyadii iyo barbaarintiisa waxaa la oofsaday rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam oo hooyadii asagoo 6 sano jir ah ka soo laabatay magaalada Madiina al-Munawwara waxay aaday magaalada Madiina al-Munawwara si ay u soo ziyaarato nabigeena calayhi salaatu wasalaam aabihii qabrigiisa waxaana la socday nabiga awowgii Abdul Muttalib waxaana lagu aasay Abwa waana qaryo ku taala magaalada Madiina iyo Makka meel u dhaxaysa barbaarintii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo dhimashadii awowgii Abdul Muttalib markay dhimatay nabigeena calayhi salaatu wasalaam hooyadii barbaarintiisa waxaa la wareegay nabiga awowgii Abdul Muttalib wuxuu ahaa mid aad u jecel sida awlaadiisa u jecel yahay si ka daran ayuu u jeclaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu gaaray nabigeena calayhi salaatu wasalaam 8 sano waxaa dhintay nabiga awowgii Abdul Muttalib markuu kafaalo qaaday oo ahay 2 sano kadib markii nabigeena calayhi salaatu wasalaam awowgii u dhintayna waxaa barbaarintiisii la wareegay oo kafaalo qaaday mar kale adeerkii Abu Talib wuxuu ahaa mid faqiir ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa arsaaqada u waasiciyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa muddadii uu la noolaa adeerkii mid ku qanacsan wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala qayb ahaan uu siiyo arrin raacistii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo safarkii ugu horreeyey uu baxa Shaam nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii uu yaraa wuxuu ahaa mid ariga u raaca ahlu Makka wuxuu ka qaadan jiray ujro uu naftiisa ku maareynayo markii uu gaaray nabigeena calayhi salaatu wasalaam 9 sano wuxuu u aaday safar ganacsi Shaam nabiga calayhi waxaana la socday adeerkii Abi Talib markay ay marayaan meel la yiraahdo Busra waxa arkay suufigii la oranayay Buhayra wuxuu sheegay nabiga adeerkii inuu noqon doono kii lagu khatimay ambiyada wuxuuna ka dalbaday inuu celiyo asigoo uga cabsi qaba cadow sugaya wuxuuna u daliishaday nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabinimadiisa calaamadihii uu ku arkay kutubtii ahlu kitaabka